shirka iskaashiga iyo wadaagga xogta arrimaha badda ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa oo maalintii shalay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ka furay magaalada Hargeysa. Shirkan ayaa waxa ka qayb galay xubno ka socday wasaaradaha kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, heer ilaalinta guud ee qaranka, saraakiil ka socday ciidamada badda, ciidamada socdaalka iyo sidoo kale qaar ka mid ah ciidamada kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Muddadii shirkani socday waxaa lagu kala qaatay isla markaasina lagu wadaagay xogta arrimaha badda ee markaasi ku saabsan amuraha dhinaca badda. shirkan ayaa waxaa soo gabagabeeyay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Munaasabada lagu soo gabagabeeyay shirkaasi waxaa ka hadlay Cabdi Xirsi oo ah la taliyaha arrimaha badda ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, gudoomiyaha hay'adda kahortagga burcadbadeedda Soomaaliland Maxamed Cismaan, iyo sidoo kale sarkaal ka socday hay'adda EU CAB. shalayta markii la furay waxaan sheegay in aad ugu faraxsanahay oo ay tahay shaqo aan culumteeda leeyahay oo aan garanayo oo aan ku farxayo sida looga hadlayo. maantana waxay sii gashay farxad kale oo ah markii loo daadegay qodobada hoos looga hadlayay ee ahaa wada shaqaynta arrimaha badda iyo xaaladaheeda iyo xog isweydaarsiga. markaan arkay iyadana farxad kale ay sii gelisay. runtii dhalinyaradii iyo raggii halkan ka sheegay presentation ka jeediyay mid waliba qodob muhiim ah oo dhaxalgala oo waxtaraya dalka iyo dadka ayuu soo jeedinayay. marka hadda gabagabadii waxaan u maleynayaa inaynu sii socon doono mid aynu keligeen qabsano oo aynu ku wadno saas oo aynu kaga soo wada qayb galno sidaa uga soo qayb galnay oo aynu hordhigno markaa mas-uuliyiinta kale ee sare ee leh fulinta arrimaha dowladda. marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shirkan. wuxuu wanaagu ku jiraa danta qarankuna ku jirtaa in shirarku inoo joogtoobaan oo aynu wada shaqayntu sii socoto. wixii shirka ka soo baxay qoraal ahaan baynu haddii ilaahay idankeeda leeyahay ku diyaarinaynaa annaga iyo xafiiskayga ee kahortagga burcadbadeedda iyo hay-adda iyo CAB taageeraysay. dabeedna inteena shir ka soo qayb gashay iyo wasiiradii shalay nala joogayba waan u gudbinaynaa. dabeedna halkaasay kasii socon doontaa wada shaqaynteennu. waxaa halkaasay inooga soo baxaysaa tallaabooyinka dambe ee la qaadayo. And from the EU CAB side, we are always very happy to provide with our knowledge and our advice that comes from the European Union and how it could be done more efficient or how it could be done in a different way. But of course, it's the Somalilanders, it's you taking the decisions. We are advising and we're giving you our knowledge and experience. gabagabadii halkaasi waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Saciid Axmed Cabdikariim. waxaanay dhammaantood mas'uuliyiintani ka warrameen shirkan iyo muhiimadda uu lahaa iyo sidoo kale ahmiyadda ay leedahay ka faa'iideysiga kheyraadka badda iyo sidoo kale in la wadaago xogta dhinaca badaha. waa shir muhiim oo qaranka muhiim u ah waayo badda iyo wixii la xiriira waa hanti qaran oo aan leenahay. waddanka Soomaaliland halka ku taalaana waa position ilaahay siiyay oo khayriya. positionkeedaas ay ku haysataa strategic place inay tahay. baddeeduna saasay u tahay strategic. ka dawlad ahaan cid kasta oo inagala shaqeynaysa arrimaha badda si aan u horumarin lahayn iyo institutionada ka shaqeeya badda hawlaheedu si aan horumarin lahayn aad bay u soo dhaweynaysaa dawladdu. inaynu ka shaqeyno oo horumarino baddeena ama blue economy oo dhan iyo kheyraadka badda iyo isticmaalkii ka faa'iideysigeeduna innagana horumar bay noo tahay, waddankeena dhaqaale u tahay. intaas waa inta guud. marka labaad shirkan shalo dhan la gurfeynayay ee institutionada kala duwan isugu yimaadeen ee aqoonta faraha badan la isugu keenay waxyaabii ka soo baxay waxa sheegay madaxda qayb ka mid ah qaybna waxa ka mid ah in aan laga maarmin horta in laga wada shaqeeyo arrinkan.